بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله توبركن maanta aan qaadanayna waxa weeyaan waa Tianis Vitality Soft Gel. daawada nadarkiisa waxa loo yaqaanaa waa Soft Gel baa la yiraahdaa Vitality Soft Gel. insha Allah توبركينا waxaan ku eegi doonaa marka maanta wax soo saarka shirkadeena Tianis ay soo saarto. Soft Gel caagadeedan waxa ku jira 30 xabbo oo sida aad arkaysan kapsulkaasa faa'iidada hadaba jirka u leedahay in eegi doona insha Allah. Soft Gel waxay ka hortagtaa waxyaabo loo yaqaan free radicalska oo dadka badanka ku sababa inuu kansarku ku dhaco. waxay u fiican tahay ama kordhisaa fertility-ga qofka dumarka iyo ragaba. waxay u fiican tahay inay koriso oo boost gareyso oo kordhiso samaysanka ilmaha kale ama inuu rag iyo dumarkuba ay dhali karaan ilmo. waxay u fiican tahay wareega dhiigga uu ku wareegayo wadnaha iyo limbiska ama sanbabada. waxay u fiican tahay kala shaqada maskaxda waxaanay dadka ay ka daweysaa memory loss-ka ama qofku inuu ilowsho badan uu yeesho. waxay la dagaalantaa ama qofku ka daweysaa stroke-ga dhibaatada dadka xagga wadnaha kaga dhaca rheumatism-ka waxyaabahaas oo dhan ayay u fiican tahay loo qaataa. sidoo kale haddii ay eegno waxay ka hortagtaa waxyaabaha waxa loo yaqaan it prevent high fat deposit in the liver inay ku ururo subag badani beerka ayaabay ka hortagtaa. sidoo kale jirka waxay ku kordhisaa nafaqo badan ay jirka soo gelisaa Soft Gel. haddaba Who Vitality Soft Gel is suitable for you u fiicantay badanka oo la rabo inay qaataan. dadka waxay u fiican tahay jecel people who want their skin complexion and hair to look their healthiest. waxay u fiican tahay dadka jecel aragtida maqaarkoodu inay si qurux badan iyo timahooda u qurux badnaadaan oo ay noqdaan waliba qaar caafimaad leh ayay u fiican tahay. soo kale waxay kor u qaadaa sexual function-ka dadka. waxay kor u qaadaa galmada kale ayay kor u qaadaa hamada galmada qofka hadii imika tusaale kale hoos uga dhacdo kale hamadiisu kor bay u qaadaa. waxay u fiican tahay inuu wadnaha kale uu adkaysto xiiqda waxa loo yaqaan ama neefta neef qabatinka inuu jirkiisu u adkaysto ayaabay u ogolaataa Soft Gel. soo kale waxay u fiican tahay free radicalska aan idin sheegay markii hore ama waxyaabaha ay sababaan waxyaabahan biraha dhaadheer taleefanadii waxyaabahaasi ay sababaan bay qofka ka hortagtaa in jirkiisa ku dhacaan ama ay ku sababto inuu neef qabatin qofka uu yeesho. difaaca jirka oo kale kor bay u qaadaa waxaanay markasta biirisaa xaaladaha jirka ee kala duwan ayaabay hagaajisaa Soft Gel saa marka hore idin sheegay 3 xabba ku jira. qofku markaa wuxuu u qaadan karaa 1 capsule 2 times daily. maalinkii hal xabbo subaxii iyo hal xabbo habeenkii ayaa qofku qaadanaya with warm water oo wuxuu ku cabiyaa biyo qandac ama biyo diirran qofku uu ku cabi karayaa Soft Gel. marka Soft Gel waxa weeyaan waa daawadaas waxaanay ku jirtaa qaybta iyaduna nadiifinta jirka ayaabay ku jirtaa Soft Gel. Better Tianis, better life. Thank you.